Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, this is our 7th lesson. So today we're going to talk about indefinite articles. In English we have got two articles. We've got indefinite articles and definite articles. We have indefinite articles and we have definite articles. So today we're going to talk about indefinite articles. Marka ardayda sharafta badan cashirka toddobaad weeye kusoo dhawaada. Cashirka waxaan kaga hadli doonaa wax loo yaqaano indefinite articles. Indefinite articles. Marka articleska waxaa loo qaybiyaa indefinite iyo definite. Marka maanta waxaan dhiganayaa indefinite articles. Marka articleskan waana a iyo an. Waxaa loo isticmaalaa marka laga hadlayo waxaan cayinayn. Hadoo kale markaan doonayo buug baan doonayaa buug ama qalin ama shaah baan doonayaa. Marka wax cayiman maaha. Markaan ku idhaahdo buug baan doonayaa buug kaadii keentaba dhag weeye weye. Markaan ku idhaa qalin baan doonayaa qalin kaad keenta waan doonayaa. Marka aduu carabigu kale nakiro noqonaya. Nakirada kale waxa weeye waxaan cayinayn. Markaan ku idhaahdo halkaan nin baan ku arkay. Waa ninkee ma cayina. wax la isla garanaya maaha. Marka waxa la isla garanay maxaan ku dhahaa loo isticmaalaa. Waxaa loo isticmaalaa maxaan ku dhahdaa magacyada gaar baa loo isticmaalaa iyagoo dhan maaha. Marka isticmaalkooda dhiganaa maanta. Marka cashir hore aan soo dhignay baa jiray. Cashirkaas oo ahaa consonants and vowels. Waxaan soo dhignay vowelska inuu yahay a, e, o, a, e, I, O iyo U. Shanta waa vowels. Inta kalena B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Intaasna waxaa weeye consonant. Marka ereyga Englishka hadduu mufrad yahay jamc aanu ahayn. Hadduu mufrad yahay aad doonaysa inaad ka hormariso a mise an. hadduu consonant ku bilaabmo waxaad ka hormarinaysaa a. haddoo kale book, tree, dream, watch, chair, monkey. Book wuxuu ka bilaabmaa b waa consonant. Tree t buu ku bilaabmaa t waa consonant. Dream d buu ku bilaabmaa d waa consonant. Watch w buu ku bilaabmaa w waa consonant. Chair c buu ku bilaabmaa c waa consonant. Monkey wuxuu ku bilaabmaa m waa consonant. Marka wixii consonant ku bilaabma waxaa laga hormarinayaa a book, a tree, a dream, a watch, a chair, a monkey. Marka a book waa buuga caadiga daftarka weeye. A tree ama waxaa buuga caadiga wuxuu daawac ha noqdaa ama daftar ha noqdaa. Book waa buugu. A tree waa geed. Dream waa riyo. Watch waa saacad. Chair waa kursi. Monkey waa daayeer. A book, a tree, a dream, a watch, a chair, a monkey. hadduu ku bilaabmo vowel hadduu ku bilaabmo ama shaqal uu ku bilaabmo a, e, o, a, o. Apple, egg, ink, ostrich, umbrella, ox. Inta an baa laga hormariya. An apple, an egg, an ink, an ostrich, an umbrella, an ox. An apple, an egg, an ink, an ostrich, an umbrella, an ox. An apple, an egg, an ink, an ostrich, an umbrella, an ox. Apple waa tufaax. Egg waa beed ama ukun. Ink waa khad. Ostrich waa goroyo. Umbrella waa dalaayad. Ox waa dibi weeye. A book, a tree, a dream, a watch, a chair, a monkey, an apple, an egg, an ink, an ostrich, an umbrella, an ox. Marka waxaa loo isticmaalaa laga hormariyaa ereyga markuu ku bilaabmo consonant. Markuu ku bilaabmo vowel a, e, o, a uu ku bilaabmo waxaa laga hormarinayaa an. cashirka inaad fahamtay baan umaleynayaa. haddii idin fahmin ama su-aal aad qabtaan xagga commentka kusoo qora. haddaan la yidhaahdo commentida kusoo qoro macalin meesha ma fahanay waxa baan doonaynaa. wax walba su-aal English ku saabsan aad doonaysaan kusoo qoro maxaan ku dhahaa qaybta commentiga.
walaalayaal marka waxaa kaloo jira aan ku darayaa laylis baa jira ama cashir aad ka shaqeynaysaan markaad daawataan cashirka waxaad ka daawanaysaan YouTube aad ka daawanaysaan markaad cashirka daawataan hoos commentiga iyo qaybta waxaan ku dhahday video ka hooseysa ama commentigaba waxaan kusoo dirayaa link waxaan kusoo dirayaa Facebook aan page aan ku leenahay Facebook aan ku leenahay ama book aan ku leenahay Facebook book aan idin geenayaa deetana laylis baad halkaa ugu tegaysaan marka layliska waa cashirka maanta ku saabsan yahay marka meelo la buuxinayo lagu buuxinayo ama an lagu buuxinayo marka ereyga deegaysaa ereyga muxuu ku bilaabmaa consonant ama shibane hadduu consonant ku bilaabmo baad ka hormarinaysaa hadduu ku bilaabmo vowel waxaad ka hormarinaysaa an marka buuxin saas oo kale oo cashir waxaa ku ugu tegaysaan marka linka ku dul dhufta deetana facebookaas idin geenayaa pageka deetana ka shaqeeya haddoo la yidhaahdo Facebook pagekana maxaan ku dhaha like saara maxaan ku dhahdaa kusoo xidhma follow gareeya YouTube kana insha Allah isna subscribe saara or like gareeya. And so dear students, I leave you there. I think our lesson today is quite short, very brief. I leave you, with assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka laylis cashirkan waa cashirka toddobaad waxaa la socda link baa la socda oo maxaan ku dhahay layliska uu ku jiro marka halkan aad imaanaysaa markaad timaado oo ka video ka hostaysa dhanka commentiga imaanaysaa commentiga marka link baa ku jira linka ku dul dhufo oo ku dul dhuftay oo ka marka linka wuxuu geenayaa Allah musta'an oo ka sugo English Facebook page ka ku geenayaa marka assalaamu alaykum ardayda sharafta leh waxaa laylis ku saabsan cashirka toddobaad waa laylis ku saabsan cashirka toddobaad linka hoos ku qoran ku dul dhufo ee ka shaqee marka linka waad saa u dul dhufanaysaa marka ku dul dhufato pagekana kusoo baxaya indefinite articles marka hoos soo wad marka su-aasha ugu horeysa elephant ma aabay qaadanaysaa ama an bay qaadanaysaa tay qaadanaysa jawaabta saxda ku qor crocodile ma aabay qaadanaysaa mise an waxay tahay ku qor jawaabaha anoo ku qorayo marka jawaabo saxa maaha marka halkaa waad ku dul qoraysaa halkaa waad jawaabaha saxda mid baad doorato saxdaad dooranaysaa ma dooratay samid baad dhahaysaa markaad samid tiraahdo waxaa kuusoo baxaya natiijadaadii intaad keentay baa kuusoo baxaysaa marka su-aal walbana waxay leedahay hal max bay leedahay marka sidaa uga shaqeeya intaa baan doonaya inaan idinla wadaago khayr badan baa idin rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh